ninkii noloshiisa ku beddelay 5 subaxnimo. Tani waa sheekada nin aan waxba haysan. Lacag ma lahayn. Mustaqbal ma lahayn. Rajona ma lahayn. Laakiin hal maalin ayuu ogaaday sir aad u fudud. Wuxuu bilaabay inuu soo tooso 5 subaxnimo maalin kasta. Gudaha 9 maalmood noloshiisii oo dhan si buuxda ayay isu beddeshay. Waxa uu sameeyey saacadahaas hore ee subaxda. Waxay kaa yaabin doonaan. Waxaana laga yaabaa inay noqdaan jawaabta aad adigu raadinaysay. Laakiin ka hor inta aynaan bilaabin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal. Imise saac ayay hadda tahay marka aad tan dhegaysanayso? Xagee ka timid? Faallo ku qor hoos oo ii sheeg. Sidoo kale like saar fideoga oo subscribe samee si aad u hesho sheekooyin kale oo sidan oo kale ah. Noloshii Cabdiraxmaan. Magaalo yar oo warshado ka shaqeeyaan habeen iyo maalin. Ayay ku noolaa nin 32 jir ah oo la oran jiray Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa ilaaliye habeenkii ka shaqeeya bakhaar weyn. Habeen kasta 8 fiidnimo ayuu shaqada aadi jiray. Subax kasta 6 subaxnimo isagoo aad u daalan ayuu guriga ku laaban jiray. Mushaharkiisu aad buu u yaraa. Si dhib ah ayuu ugu filnaa inuu ku noolaado. Wuxuu ku noolaa guri yar oo hal qol ah. Marawaxaddii waa jabnayd. Furaash dhulka yaal ayuu ku seexan jiray. Hal nal oo keliya ayaa jiray, mararka qaarna wuu libdhi jiray marka korontadu daciifto. Dharkiisu waa duub. Kabihiisana godad baa ku yaalay. Laakiin Cabdiraxmaan wuxuu la ildarnaa wax ka daran saboolnimada. Wuxuu dareemayay in noloshiisu xaniban tahay. Subax kasta markuu guriga u socdo, isagoo maraya magaalada hurda. Wuxuu daawan jiray daaqadaha dadka kale. Qoysas quraac wada cunaya. Carruur iskuul u diyaar garoobaya. Rag shaatiyo nadiif ah xiraya oo shaqo u baxaya. Cabdiraxmaan wuxuu isweydiin jiray. Ma sidan ayay noloshaydu ahaan doontaa weligeed? Anigu guriga ayaan u socdaa marka dadka kale ay u toosayaan inay riyooyinkooda noolaadaan. Wicitaankii beddelay wax walba. Subax qabow oo Talaado ah bishii Nofeembar. Taleefankiisa ayaa soo dhacay isagoo shaqada ka baxaya. Waxay ahayd walaashiis. Cabdiraxmaan si degdeg ah u soo bax. Hooyo way suuxday. Isbitaalka ayay ku jirtaa. Wadnihiisu wuu istaagay. Isla markiiba wuxuu raacay bas si uu tuulada ugu laabto. Safar 3 saacadood ah oo u muuqday mid aan dhammaanayn. Markuu isbitaalka yimid, hooyadii sariir ayay saarnayd. Way daciif ahayd, laakiin way miyir qabtay. Dhakhtarku wuxuu sheegay. Waxay suuxday sababtoo ah daal iyo walbahaar badan. Waxay u baahan tahay nasasho, cunto fiican iyo dawooyin. Laakiin ma awoodaan. Hooyadii waxay qabatay gacantiisa. Codkeedu aad buu u daciif ahaa. Cabdiraxmaan wiilkaygiiyow. Wakhti badan ma haysto. Fadlan ha lumin noloshaada sida aniga oo kale. Raadi waddo kale. Igu ballanqaad. Cabdiraxmaan wuxuu fadhiistay agteeda ilaa ay hurdo. Wuxuu eegay gacmaheeda duugoobay. Gacmo sannado badan beeraha ka shaqaynayay. Sida uu isaguna habeen